wadaan isaga oo qayb ka mid ah eed culus dusha uga tuuray. waxaan inay xusuusinayaa 5 sano ka hor bay ahayd markii hadda oo kale bishaan oo kale aan meeshan hadda maanta taaganahay sidaas leegaad igu soo dhaweyseen oo aan uga khudbeeyay aad iyo aad baan u xusuusanahay muddo 5 sano baan joogay xafiiska aniga iyo xukuumadda iyo baarlamaanka iyo golaha garsoorka iyo inta shaqaalaha ah oo shaqaynaysay waxaan u malaynayaa idinkaa ka ah marag inaan wax qabannay intii tabartaya ah wax dadaala maanaan reeban dhinac kastaba ha ahaatee maanta buntland dawlad dhisan weeye nidaam leh dastuur leh calan leh xeerar kale leh ciidan leh kala gedisan anigu nidaamkaasaan ku sugnahay mana ka baxaayo laakiin dad ka baxay waa jiraan dad badan baa isa soo sharaxay laakiin waxaan inii sheegayaa kuwii isa soo sharaxay 2009kii iyo kuwa hadda soo sharaxay isku taya maaha intooda badan maalin dhaweyd nin baan ka dhegaystay idaacad xayeysiis u samaynaya oo been sheegaya waxau ahaa ninkaasu nimaan anugu ugu wacnaa inuu xafiis dawladnimo ah oo public ah oo xafiiska Soomaaliya ugu sareeya kan ku xiga anugu aan ugu wacnaa in la geeyo shaqo dawladeed warigii hal sano qabto intii aan wada joognay intuu gacan la siin lahaa lugooyo mooye waxba nooma tarin wuxuu sheegtay been inuu isagu buntland burcadbadeeda ka sifeeyey waryaa burcadbadeeda buntland ka sifeeyey ma cabdiweli mise cabdiraxmaan markii uu madaxweyne Faroole dhamaystay khudbadiisa waxa uu salaam la dhex maray dadweynihii soo dhaweyntiisa ka qayb galayay haddii aad doonayso guri haddaad doonayso guri yar haddaad doonayso guri weyn iyo meel baaxad weyn oo lagu noolaado jikado casriya iyo weliba beerta nasashada oo aad u ballaaran iyo guryaha iridda weyn laga gala kadibna ay guryuhu gudaha ku badan yihiin dhismahoodu ammaankooduna uu sugan yahay intaba waxaa kuula diyaaray sharikadaasi waxaa kaloo ay ku diyaarisay dadka doonaya hoteelada in loo dhisay iyo guryaha qaab aad u wanaagsan iyo naqshada iyo guryaha caalamiga ee ku yaala qaaradda Yurub oo kale ayadoo shirkadu ku ballan qaadayso riyadaada inay run ka dhigto waxa intaas dheer meel kasta shirkadu ay dhistaba biyuhuna ay toos yihiin looguna talagalay goobo ay biyuhu ka baxaan wasaqda oo aan haba yaraatee ku istaagaynin waxa shirkadaasi ay ka caawinaysaa in korontadu ay si toos tahay waxaan meesha ka maqnayn air conditionkii iyo weliba qalabkii qaadaya qiiqa iyo awoodda enerjiga iyo xagga korontada ka timaada cadceedda weliba leerarka korontada laga dhaliyo dhinaca motorada wixii faahfaahinana waxaad kala xiriirtaan